gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee udub mudane Axmed Yuusuf Yaasiin iyo wafdi ballaadhan oo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka ah ee udub ayaa maanta lagu soo dhaweeyay gudaha magaalada Burco. boqolaal dadweyne iyo gaadiid ah ayaa waxay kaga hortageen goob ilaa 12 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Burco, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo astaanta xisbiga mucaaradka ah ee udub. taageerayaasha xisbiga udub iyo waliba gaadiidkooda ayaa waxay u soo galbiyeen dhinaca magaalada Burco iyagoo ku soo wareejiyay guud ahaan shaariiciyada iyo wadooyinka halbowlaha u hayso socodka gaadiidka ee magaalada Burco, iyagoo markii dambana xarunta dhexe ee xisbiga udub uu ku leeyahay magaalada Burco uga khudbadeeyay boqolaal dadweyne oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga udub. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin oo goob fagaaraha kala hadlayay dadweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan in safarkooda uu salka ku hayo dardargelinta hawlaha xisbiga. saraakiil aad u tiro badan iyaguna halka ka hadlay oo ka tirsan madaxda xisbigaasi mucaaradka ah ee udub ayaa waxa ay ku dheeraadeen sida ay uga go'an tahay inay ka qayb galaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Guuleed Daahir Samatar oo hore u ahaan jiray barasaab ku-xigeenkii gobolka Togdheer ayaa isaguna waxa uu halkaasi ku soo bandhigay luuqad ka turjumaysa nasteexe iyo waano uu dhex dhigay dhinacyada isku haya xisbigaasi, isaga oo sheegay in xisbiga udub uu dadka hor iman doono isaga oo mid ah. xisbigan mucaaradka ah ee udub oo hore u ahaan jiray xisbigii talada dalka Soomaaliland uu kala wareegay xisbiga Kulmiye ayaa tan iyo intii ay ka jeesatay kalsoonida shacabka reer Soomaaliland ee lagaga guuleystay doorashooyinkii madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu noqonayaa markii ugu horeeyay ee uu qaado tallaabo uu ku dardargelinayo kuna abuurayo xarumo cusub iyo waliba hawlaha xisbiga. Sabri Burco.